aad ma santahay gudoomiye Faysal Cali Waraabe waqti badna siisay warbaahinta iyo anagoo si gaar ah aan marka ku wareysanayno waxaan doonayaa inaan arrimaha taagan laba saddex su'aalood ka weydiiyo arinta ugu horeysa waxa weeye shalayto inkastoo aad mowduuc gaar ah kaga hadasheen adiga Cabdiraxmaan Cirro gudoomiye xisbiga wadani kulan baad idinku is garab taagan markii ugu horeysay intii doorashada laga joogay aadeen warbaahinta la hadasheen dadku si kale u fahmi karaan dadka siyaasadda waxa leeyihiin labada xisbi tolmiyo heshiiyeen xukuumadda mucaaradada xoogan bay soo wadaan arinta maxaad ugu fasiri lahayd bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin doorto waxa weeye markastaba labada xisbi ee mucaaradku waad hore u sheegay way wada shaqeeyaan mar haddii marka dhamaatay magaalada tartankiina doorasho dhamaatayna hadda waxa loo soo jeesay magaalada wadanka loo hagaajin lahaa dee dawladda kulmo markaa joogta loo sixi lahaa markaa wax hore u jiri jiray waxa in labada xusbi anaga kulmiye waxaan ahaan jirnay guddi baan wada ahaan jirnay u bahaa intii dambe wadani samaystay imaan wada shaqayn in fact laakiin imaka waxaan u shirnay hawl madaxda xusbiga executive-ka soo qabatay ahayd inay guddi midaysan sameeyaan oo dawladaha hoose inaga qurmay aad iyo aad u feelgaroobay baalis la soo saaray mooda la soo bandhigo inay magaalada ay soo saaraan baaristoodii dadka u soo bandhigaan ay ahayd taasoo special case bay ahayd laakiin kolley waa lama huraan in labada xusbi ee mucaaradku iyo ka dawladuba ay wada shaqeeyaan kuwa dawladna wixii de common naga dhexeeya ee qarannimaan wada leenahay waa wada shaqeynaynaa marmar baa ka dawladda iyo labada xusbi mucaarad mid ahaan isku fikrad noqonayaan wixii issues baa laga hadlayaa maaha mar kasta inay labada mucaaradku isku aragti noqdaan dee anaga kulmay wadani waan ku kala duwaneen basekii iyo DB World anuu waxaan taageerinay fikraddii dawladda iyo way kasoo horjeedaan marka wuxuu issuesku saasay isku bedelayaanoo marna ka dawladda noqonayso marna saddexduba isku arkay noqonayso okay waa art of politics siyaasadda hoose kuma jirin marba Faysal baa la yiri shirban yeelanaya Cirro kiiba laga ما كل وانا يرانا شرعه ونقد حياة واحد بدنا ده نقد حياة حسب مكان معارض كا هذا ويشريه الدولة دي كل ما يكسر ما يستنتهي أنا معارض كمان هاي ما كان يسقط ترسيم أنا معارض ما لقى وقت ما كان وين شريه إن شاء الله يشيء بدن ونكون تشاننا وندولنا سك أركض نقولنا أدنى أركض الدولة دي كأركض هاي isna ka aragtay yahay in midaysan wada sameeyno way imanaysa arinta kale jirta waxa weeye shirkaddan maalgelisay dekedaha oo dekado badan oo geeska Afrika ku yaalana maalgelisay DP World Somaliland dekadii berbera laga kireeyo oo inay maalgelisay waxa kale isna jira arin kale oo Imaaraadka Carabta saldhig military lagu siinayo Somaliland arinta soo cusboonaatay ee Djibouti iyo u dhaxaysa DP World dhigtay ka taagtay Somaliland waxa la leeyahay walaac bay gelisay lafteedu waxa la yiri hadii DP World ay ka noqonayso oo murankaasi ka taagan yahay Djibouti Somaliland waa inay ka noqotaa arrimaha ka xisbaan iyo ka Faysal Cali Waraabe waxaan soo aragtaa damay waxa uu degeysanaysay magaalada ninkii dekada xukuumadda Djibouti qodobadu ka hadlay magaalada ay isku afgaran waayeen DP World waa laba qodob ah qodob wuxuu yiri waxay yiraahdeen ha samaysanina dekada kale laakiin way samaysteen oo afar dekado kale sameeyeen markaas qodobkaas valid maaha already waa bay samaysteen oo ma taagna murankiisi kale wax weeye dekada kale iyo badda cas ay oo Soomaaliya ku taalo ayay tan ka jawaabina taas in fact wadanka sax wuxuu leeyahay wadankiisa hormariyo laakiin wadankaas hormaray in lagu yeeriyo ma yahay لما كان إنك إلا هذا واحد DP إنه قلبان إسكو مرة لا نهاي ده مشرو إلا هذا يقول اسمه سبعة تبع مشرو ولا واحد شرا مشرو ولا شرا لما هو حكم الدولة دي وحكم عن وزير دي إلى ما طلع يا سيحان هشيسكي وكم طماع فاينل كي وحكروا ولا أي مشرو ده جبوت دي كول علينا يلا خصيص عرين تحس لكن واحد خصيصون عنه نكا هذا اللي يوديهم labada qolob oo sheegay mid oo reedo dekado way samaysteen marka ma oran karna way laga hor joogo waxa leeyahay waan samaysanayna qodob kale wuxuu ahaan ilaa jeesanta oo sheegay ilaa cadanta ay sheegay ilaa boosaasa ilaa berberaas
ayuunbuu dee ka hadla u yidhi sovereignty dhibaatay gelinaysaa taas baa inuu ka jawaabay ya tan saldhigga military waxa la yidhi dhulkii hakad baa la geliyey taas saldhigga military Somaliland inay ka noqoto laga yaabo inay qorshaysato Somaliland waxay wad si shisheey u jecel yihiin dhulka waxa la isku hayaa on territory-gii compound-ka qabsadeen inta kilomitir qabsadeen yuma la ka yareysan leeyahay intaasoo dhan uma baahnide intaasoo ba laga heshiinaya base-ka in principle waa lagu heshiiyey inay isticmaasho imaaraadka base-ka Somaliland waa lagu heshiiyey waana danteena imise base baa ka samaysan Djibouti imise ka samaysan Soomaaliya maxaa keeni ka dhigay wax dad oo dhan ka talinaya this our interest وين كنت طلاب صنينا وحكيت على المشر وأحيانا لنا المانتي تكلها اللي كم تاع وروحن عدو يشيجيو دوني إنه ساو قاتشونو دوني أدوك أي الله معاملين ودوني إنه صاحبي لأن انتهي نقول بونبوننا بل ما كان حمر إمت إلا بالدوغ لا فريا لبي الله بعطوه واحد شوي كن أو شيء شوي تركي جيبات شوي إمارات جيبات شوي قدر بات شوي why don't you talk that maxaa Soomaaliland beeskeeda ka dhigay geeska afka uga hadlaya waa doqonimadeena waa fartafraaruqeena waa garaad la'aanteena way uu soconaya insha Allah taala waxa la isku hayaa waxa weeye yani intu dhulku leeyahay intaas oo baa way wada hadalladii khaatamaya Somaliland oo adiguna aad xubin ka ahayd gudidii hawsha ku jirtay inta badan ka shaqeynaysay meel bay isku taagan in heshiis aynaba lagu gaaray bay ahayd in hore looga sii wada loo baahnaa baa la yidhi xukuumaddanina weli arrintaa kuma tallaabsan wada hadalladaasi siday kula muuqdaan waqtigan xilligii xaaladda ku jira si fiican bay u socdaan ciidamada daawanaysa la qarameeyey magaalada balacad iyo werwed waad arkaysay shalayta waan joognay waxaa la qarameynayaa shaqaalihii macallimiintii dadkii ka howlgelaya caafimaadka warbaahintii reer werwed degmada werwed baa la sameynayay على خليفة أقدر أنا وتجنا إني متشرمكة ساكو كلها يوتج حاجة لها سعنات ويسعتها أنت إلا هذا صوفار موسى سيف عن موسى سيف أبو وضع إلا هذا ولد عن شيء تمني دك أيوكا وده هذا الذي Somaliland الصومالية أو هكذا كيمي أياد ديب لغو وضع إنه أفرمان يلفت وده قريب بدن بعد كل هيد وده حبنيه وده هذا الذي Somaliland مثلين مرة بدن كم ده هيد إمك ديب هذا أفرمان maxaa loo baahan yahay marka hore qaldana in la saxo oo Somaliland ay ku baraarugsanaato maxaa loo halkees loo baahan laga bilaabo arintani imaka waxaanu kurtu keen ku maqaleen meel kale ka maqleen in 19 bisha ka bilaabmayso in magaasha la yiraahdo Djibouti labada xil isku imanayaan laakiin waxna si dara anaga iyo xisbiga kale mid keen anta lama weydiin lama sheegin meel kale ka maqleen hadii arun saa u socdaana khatarteeda leedahay oo ay isku koobaan magaalada ay madaxweyne isku koobarinta iyo dad isagoo gaar u arkay oo anaga aan asxaabteena wax naga weydiina taanu talaabooyinka aan qaadana hada wax la isku joojin waayo deewa anaguna waan tashan doonaa laakiin waa in la bilaabo waa committee baa lagu yahay waana danteena inaan nimankan aynu si dhaqso ah u kala baxna waa loo baahan yahay ده واحد ولا ليه واحد ولا ليه أنا وضع لا ويا وتنت ومضى حكي شرتا واحد on board لو ده يعني أنا قفنا أنا شاكك كلامين وأنتوا يعني لو ده أوجي هاي يبرنامج لو يعني يقول لو ده يعني يسترشد لو سميه يعني إنه one voice squad لا ويا لكن هذا تنسى أطاس إن مكان مقالة سالة طبعا بتكلم أنا إنه مش يجين أنا عبد الحميد بتكلم مش يجين ما له كانوا كمقالة dambeyn engineer Faisal Al-Waraabe xilligii doorashada ka hor waxa dadku oran jireen Faisal wuxuu la jiraa xisbiga kulmiyo oo ay saaxiibay yihiin gaar ah imika laakiin waxa loo yar muuqato leeyahay waa mucaaradad buu bilaabay oo Faisal engineerkii mucaaradad cusub buu bilaabay arinta maxaad ka leedahay wadan mucaarad bilaabo Muuse madaxweyne ma noqon karaba aan joog habeenaysa joog kale mucaaradna soo imka idin shireen mucaarad ma mise wala ma gatirnay mucaarad ma bilaano markasta qaran baan ka shaqeeyaa qofka say jirta markaan wada tartaminay laba noo saddex noo tartamiyaan ahayn marka waxa dacaayadu waa wadana sameeyay laha Faisal wuxuu la socdaa kulmi maxamed Muuse oo dacaayadii dadka lagu khalkhalgelinayay laakiin anigu markastaba madaxweyne ka soo jeedo waan kala shaqeeyaa danta Somaliland hadduu qaldamana uma habrade waan joojiyaa
muusena hadda waan daawanayna waan eegaynaa haddii uu cooperation oo la cooperate garaynaa haddii uu shaqeyn waayana wayla keliya waan durduran yahana waan qabanna aad u mahadsantahay gudaha